giving up, letting go. Times we might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Hal Abuur Somali channel. walaalkay saaxiibtiis oo la yiraahdo Hinda waxay internetka ka baaraysay guri cusub macnaha inay soo guurtay rabtay waalidiinteeda isku dhaceen waxayna saaxiib ahaayeen walaalkay oo la yiraahdo Axmed muddo dheer ay wada sheekeysanayeen markii dambe waxay go'aansatay inay soo guurto waxay aragtay qolal loogu talagalay haweenka kaliya only female runtii guriga aad u dheeraa macnaha meel fog uu ku yaalay Hindana waxay aragtay markii dambe guri raqiis ah waayo guri raqiis raadinaysay waxayna jirtay 23 sano waxayna ahayd student macnaha waxay baran jirtay nimanna lama noolaan karto waayo gabar ay ahayd nimankana aad ay uga cabsan jirtay waayo xiriirkeeda hore si fiican ba kuma soo dhamaan markii dambe Hinda fariin email ay qortay macnaha ninkii guriga lahaa ayay ku tiri guriga aad uga helay 45 daqiiqo kadib ninkii fariintii uu soo celiyay wuxuu ku yiri guriga waa imaan kartaa aadayna ugu faraxday runtii Hinda markii soo gaartay guriga wuxuu ugu imaaday waraaqada albaabka ku dhagan waxaana ku qornaa albaabkan uu jaban yahay albaabka gadaale isticmaal kadib aaday u naxday guriga aad u qurxoona laakiin wuxuu lahaa meel caws ah oo ka dhamaatay daaqadaha wasaqi ah albaabkii qaraacday nin baa ka fur Hinda waxay istiri guri qaldan baa imaaday ninkii wuxuu ku yiri aniga waa ninka mas'uulka ka ah guriga waana guri saxan waana soo gali kartaa Hinda aad u cabsatay ninka san waa maamulaha guriga ah naxdin ninka wuxuu ku jiray da'dii 40aad garkiisana muusan xiran ninka qoro ahaa wuxuu u ekaa nin ku dhaxnool gaarigiisa gurigana halka lan oo shaqeynaya lanka jikada unbuu ahaa Hinda aad u naxday markii aragtay guriga sariir oolin waxba oolin ninkii waxay ku tiri maxaa way gurigaada saan ah markaasuu ku yiri wax dhiba ma ahan lankana ma jecla in la daaro mar walba uu ku damin jiray lanka markii dambe Hinda waxay aragtay qol xiran waxay ku tiri qolkan yaalaniyo ninkii maamulaha wuxuu yiri ninba iskala mana jeclay in la furo la arko waayo alaabtiisana oo ilaalina gabadha aad u naxday Hinda waxay kaloo aragtay Hinda qol xiran waxay ku tiri qolkaasna yaale markii dambe ninkii jawaab dhan uu siin waayay wuxuu ku yiri wax baan ka ilaabay Hinda markaasii tiri maxaa waay qolkii fadhigan ka ilaabay inaan ku soo tuso kadib qolkii uu soo tusay qolka waxaa yaalay kuraas iyo lan iyo wax walba yaalay laakiin mugdi ahayd cabsi markaas ninka guriga lahaa wuxuu yiri gabdhaha u horeeya waana ku cunaaya Hinda xajay gali markaas Hinda aad u cabsatay waxay sameysay garan weyde markii dambe waxay maqashay gaari banaanka la soo dhigay oo nin albaabka ku soo dhow fariin Hinda u soo qoray fariintii waxay ka dhigtay in la soo wacay oo kale waxay ku tiri waan soo socdaa banaankan u soo socdaa way ninkani aad uga cabsanaysay Hinda markii dambe Hinda albaabka way soo baxday ninkana wuxuu isdhaa gabadha maxaa ka qaldan way ninkani aad uga cabsanaysay Hinda intii soo orday baabuurkeeda soo raacday xaafadii imaaday walaalkeedii hooyadeed wax walba u sheegtay booliiskii la wac booliiskii markii baareen arintii waxay arkeen macnaha internetka in la xiray gurigu ninka jireen jirana in 6 bilood la xiray oo bandow la saaray askarta aad u yaab booliiskii markii soo jabiyeen ninka gurigiisa waxay la kulmeen ninkan oo dhar wasakh meesha u daadsan yihiin iyo baakada meesha u yaalay saabuun ka dhamaato cunto wax lagu cuno iyo caagada eber ah qolkiisa gudahana waxaa ku sawirnaa joornaal gabdha ku sawiran yihiin oo soo afduuban jiray oo darbiyada dhan ugu dhagnaa meesha ugu daranna waxay ahayd qolkiisa hoose macnaha barsada wuxuuna ku xiray xarig yar si macnaha qofkii soo galo ugu dhaco gabdhahana meeshaas uu ku cuni jiro ku dili
qolkiisa hoosena waxaa ku jiray suumam uu gabdhaha ku dili jiray iyo koolayaal macnaha gabdhaha ku afduuban jiray. Hindana waa arrin ku dhacday. Hinda mar dambe arrintaas umay noqon, waana qiso xanuun badan oo ku dhacday Hinda. aadaan uga xumaa runtii.